waan rajaynayo inay dad badan oo shacab oo Soomaaliyeed ku nasan doonaan haddii Ilaahay yidhaahdo. waxaa laga sugaya in ay tahay inay qaataan waajibaadka la siiyey. waxaa idiin yeelaya dhul badan oo hooyooyin iyo aabbayaal labaduba ay ku dayacan yihiin oo shabaab ay dhan walba u diideen. idinkoo dhalinyaro maanta u badan waxaan rajaynayaa howlgalkaasi inuu ciidankaani afmadow iyo isu furo Kismaayo. idinka iyo ciidanka kalena hal mar la isla bilaabayo oo la isu furo Jilib iyo Kismaayo labadaba. inaan isku tashanno oo inagu aan diyaar garowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto. waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii la idin siiyey tijaabisaan shaqada la idiin diray aada fulisaan. aanan isla garanno saacaddan laga bilaabo howlgalkaad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku xoranno nimankaana aan waddanka kaga xorayno haddii Ilaahay yidhaahdo. howlgalkaasoo diyaar uma tiidin. waan idinku iman doonaa jiidda haddii Ilaahay yidhaahdo. kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysay wax ka dhacayaan. intaana waan idinka ballan qaadaya. aan ku sabirno oon ku dulqaadanno waxa dadkeenna aynu u tarayno. waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meel geynaynin. oday iyo hebel baa iyo kanaa sidan aanayna qofna meel geenaynin. waxaan soomaalinimo ku weynay wax meel kale kuma helayno. aan iyada ilaalinno oo aan dadkaa u gargaarno oo hawshaa aan qabanno haddii Ilaahay yidhaahdo. maanta laga bilaabo lama odhanayo dugsigii iyo qoladii dhibooga ahayd iyo qoladii tababarka ku jirtay ee waxaa tihin ciidan magaca leh. ciidan waxa ugu muhiimsani waa amar kala qaadashada iyo dishbiliinka labadaa inuu ilaaliyo. haddii ayna amar qaadasha jirin waad aragtay bahashan quraanjada ay guuraysa isdaba socota. say u socota hal mid baa istaagi way wada istaagaysaa. wax soconaya male. innagu cod dheer ba wax isku maqashiinaya iyagu cod dheer waxba iskuma maqashiinayaan. haddana saasay kala dambayntooda u jirtaa. amarka in la kala qaato iyo in la ismaqlo iyo in dishibliin ciidanku uu lahaado yaa waxay ka muhiimsan tahay qofku inuu geesi yahay iyo inuu wax walba tariyo inuu wax walba yahay. intaas taasaa ka muhiimsan. ha la ilaaliyo dishibliinka. waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada. haddii kala dambayn la-aan ay jirto waxaa la yidhahdaa kala dambayntu 12 qof oo debdemis ah dab kacaya hadday u yimaadaan 12kaa qof si fudud bay dabka ku demin karaan. laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sii daara hala demiyo waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo, midna biyo ku shubo, midna ciid ku shubo, midna dhar ku shubo. dabkaas inuu sii ololaa laga yaabaa. laakiin 12kaa qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub halkaas saare halkaas saasne si fudud bay ku demin karaan. taa markaa aan sidaa ugu xisaabtanno. waxaan isugu iman doonaa janaax cabdalla haddii Ilaahay yidhaahdo. hadalkan hadalka xiga janaax cabdallaan ku kulmaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo. iyadaana ku wada hadlaynaa. markaasaan idinkala hadli doonaa maxaa jira, say waxu jiraan, xaaladda ka warrama, xaggeen u soconnaa, maxaan samaynaa. saasaan yeelaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo. ballanteennu safarkan markaan ka soo noqdo haddii Ilaahay yidhaahdo iyo janaax cabdallaan ku kulanno oon idinku imaado intaasaan dhigaynaa.